aadaan soona caga dhigtaan ee wadankan boqortooyada Ingiriiska Heathrow Airport waxa caawa ka soo degay marti sharaf aad u ballaaran oo uu hogaaminayo agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Maxamed Cali Weji fanaaniin iyo qoraa sida caadadu tahay sanad walba waxa lagu qabtaa wadankan Ingiriiska barnaamijka loogu magac daray Somali Week oo ay maamulo ka tahay ayaan Maxamed Cashuur waftiga ayaa inta ay joogaan waxay soo bandhigi doonaan qof waliba hibada ABRC iyo xirfadiisa gaarka ah halkan noogu marti ah waxaan kelmadda soo dhaweynta siinayaa safiirka Somaliland u fadhiya wadankan boqortooyada Ingiriiska waxaan ku soo dhaweynayaa madaarka Heathrow Airport UK London waftigan sharafta leh inoo yimi oo hogaaminayo Maxamed Xasan Weji Ikraam Jaamac iyo Cabdi Casiis iyo Huda Cali Bansfas ku soo dhawaada Heathrow Airport alxamdulillah hadii ilaahay nabad soo keenay wayna iswareysan doonaa fadhi bayna isugu soo wareysan doonaa waa daasheen ayaan waxaan halkan iyana ku soo dhaweynayaa ayaan Maxamed Cashuur oo ah ambassadorkii hore halkan London haddana isu keenaha dadkaas ka yimi dalkii hooyo dhammaan jaaliyadda Somaliland ee ka timi dalkan UK goobihiisa kala duwan ka yimi ayaan iyana aad iyo aad u soo dhaweynaya aad iyo aad noo salaamaya aad baa u mahadsantiin bismillahir rahmanir rahim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Heathrow Airport in badan baan islaastay magaca ma soo dhigay waa ku soo dhaxtaay laakiin taariikhdii si galaysa iyo noloshayda markaan waxba ka qamal luqa hadiya jeer waxaan idin leeyahay intiina soo dhaweysay oo horeeyo safiirku iyo odayaasha kale ciidda ka badan magacadooda wada tireen qof maqaamkiisa iyo maamuuskiisa ku salaamayaan waxaan leeyahay wadfaayana iyo dagaamaya waxa xaga naga soo taabushay halkan ka hobshay hawshana ka shaqeysa waxaan leenahay ilaahay ka abaal mariyo waa qof ka muuqda shaqadeeda oo ku filan ismaan leena daway joogtaa waxaan bixiyay Iron Lady waxaan leeyahay inta hadda codkayga garanaysa muuqaalkayga arkaysa dalka Ingiriiska iyo waaxiisa joogtana waxaan leeyahay haddii aadna tabaysay noo kahaysay harmony habeenkii fiid hooyanaysay oo haraatay madadaalo sheekooyin iyo heese macaan wabal anaga ku sidna masha Allah Ikraam Jaamac Ikraanay adigu Ingiriisku wuxuu ku mahmahajasi education anta forula because sometimes English me please little girl you are single meeshaadi maanta yeah waka aad iyo aad waan kugu soo dhaweynaynaa wadankan Ingiriiska dadkaagi way ku sugayeen fankaagi baa la sugayay bulsho badan oo saxafiyiin leh oo odayaal leh oo safaaradii leh oo agaasimihii Somali Week leh ayaa hadda halkan ku dhan Allah waxa aad baradii wada salaamaya bariyaha deemaan soo bixinay halkan ma iska joognay ma garanaysaa de adiga degay qalbiga wadna hada calkiisi soo dego hadii alla ila Somali Week aad baad u mahadsantahay deeqa dhamaantiin wada mahadsantihiin safiirkuna oo mahad celinaynaa ayaan waan isla soo googoonay wax badan oo suuqa ay dambeeyaan waa markii koowaad ee nimaada London ama Europe aan iraahdo fursad weyn bay u tahay runtii shaqadayda waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in 10 sanadood ka hor uu aabay yimid Cali Bansfas Allah u naxariisto October 2012 inaan maanta October 2022 imid 10 sanadood kadib anigoo u socdo waxaan anigu qabtay oo aan ku socon kaliya in Cali Bansfas kaliya sharaf weyn bay ii tahay maasantahay deeqa aad maasantiin dhamaantiin waa hadalka waa la iga horeeyo dhamaan intaas aan la qabaay kulli waa reer London waa isu naalnaa oo waa isu dambeynaa aad iyo aad wada mahadsantiin alxamdulillah aad iyo aad baa mahadsantiin dhamaan safiirka iyo jaaliyadda iyo dhamaan waa u mahad celinayaa si sharafta leh oo martida runta u soo maamusteen dalkii nooga timid uu hogaaminayo maxalay adeer Weji fan wuu dambeeyaa hadal wuu dambeeyaa marti way dambaysaa martidu aad iyo aad bay u fara badan tahay yar iyo weyn iskaga iman doona cariga Soomaalida oo idil
marka waxaan rajeynayaa insha Allah weegu inuu noogu dhaco si aad iyo aad u weyn waa hordhaci maxaa la yiraahdaa maanta martida inoo yimid berina waxa la filanayaa insha Allah intii kale waan ku salaamay aad iyo aad baan u dhowahay dhammaantiin waan salaamay baadiina TV-ga qaranka Soomaaliland oo ah mar kastaba gacantayda midig meel kastoo aan joogno wax kastoo aan qabanaynaba si gaar ah idin salaamaya waxaan salaamayaa safiirkeena dhammaan marti sharafta halkan joogto dhan odayaal iyo gabdhaha isugu jira waan salaamayaa waxaan leenahay martida soo dhawaada anagu reer London sharafta iyo wax la nagu ogaa soo dhaweynta halkii baanu ka wadaynaa dayaan loo kala harin laga bilaabo caawa aawsho inoo bilaabatay deeqa maxamed qolombi TV-ga qaranka Soomaaliland London